daawadayaal ku soo dhowaada warbixin ku saabsan iska horumaadiyada militari ee ka socda dalka Liibiya. Afhayeenka rasmiga ah ee xafiiska warfaafinta militariga dowladda Liibiya ee caalamku aqoonsan yahay, gaar ahaan howlgalka la yiraahdo Burkaanul Qadab ama fulkaanada carootay ay ugu magac dartay dowladda Liibiya oo ay ku qaaday maleeshiyaadka Xaftar. Afhayeenkaas oo la yiraahdo Cabdilmaalik Almadani ayaa sheegay in diyaarad aan la aqoonsan ay fulisay gelinkii dambe ee Talaadada ahayd weeraro xagga cirka ah, wuxuuna weeraradaas ku sheegay kuwo guul ku soo dhammaaday. Afhayeenku laguna bartilmaameedsaday goob ay ku sugnaayeen calooshood u shaqaystayaasha shirkadda Wagner Group ee Ruushka laga leeyahay. Waxa uu sheegay afhayeenku in calooshood u shaqaystayaashaas ay duqeyntaas ka soo gaartay burbur, dhaawac iyo dhimasho fara badan. goobta lagu bartilmaameedsaday calooshood u shaqaystayaasha ayaa ah magaalada Sokna oo u dhow saldhig ciireedka Al-Jufra, oo ay isagana ku sugan yihiin diyaaradaha Ruushka iyo raadarada difaaca Ruushka oo uu dhowaan Ruushku halkaas u daabulay. Sidoo kale saldhigaas iyo agagaarkiisa waxaa ku sugan ilaa 5,000 oo calooshood u shaqaystayaal ah kana soo jeeda dalalka Suuriya, Suudaan iyo Jaad. duqeyntan ayaa loo malaynayaa inay geysteen diyaaradaha dagaalka ee Turkiga, maadaama ay dowladda Liibiya ay iska fogeysay duqeyntan inay iyadu geysatay ama ay lug ku leedahay. duqeyntan ayaa ku soo beegantay xilli diyaarado Imaaraadku leeyahay ay duqeyn iyo tashwiish u geysteen saldhig ciireedka Al-Witiya oo uu dalka Turkigu rabo inuu ka dhigto saldhig rasmi ah. duqeynta Imaaraadka ayaa la soo sheegay inaysan wax dhibaato ah aysan u geysan qalabkii oo la saldhigaas. dhawaanahan dalka Liibiya, gaar ahaan caasimadda Tripoli, waxaa booqashooyin kala duwan ku tagay wasiirada arrimaha dibadda iyo difaaca Turkiga iyo taliyayaasha ciidamada badda, bariga iyo cirka ee Turkiga. tan ayaa lagu micneeyay in Turkigu uu fariin ugu dirayo dowladaha taageersan Generaal Xaftar. dowladahaas oo kala ah 3 dowladood oo loogu yeero sharwadayaasha Carbeed, waxayna kale yihiin dowladahaas Imaaraadka Carabta, Masar iyo Sacuudi Arabiya. sidoo kale dowladaha kale ee taageera Xaftar oo kala ah Ruushka, Faransiiska, Greega, Iiraan iyo Israa'iil. fariinta uu Turkigu u diray dowladahaas ayaa lagu sheegay inay tahay in Turkigu u muujiyay amaba uu cadeeyay inay ka go'an tahay in Turkigu uu gacanta ku dhigo magaalada sirta, magaalada Al-Jufra, saldhigga Al-Jufra iyo aagga la yiraahdo Al-Hilaal Nafdiyi oo ah aagga ay ku yaalaan ceelasha shidaalka Liibiya ugu badan. shidaalkaas oo laga dhoofiyay dekedaha magaalada sirta. sidoo kale waxaa la sheegay in ciidamada badda Turkigu isku ballaariyeen ama isku fidiyeen xeebaha dalka Liibiya. tan ayaa Turkiga u sahlaysa ayaa la yiri inuu si fudud gacanta ugu dhigo aagagaas la isku horfadhiyo. tallaabadan uu Turkigu ciidamadiisa badda uu ku fidiyay xeebaha Liibiya ayaa waxay niyad-jab iyo dhabarjab ku tahay dalalka Faransiiska iyo Ruushka oo iyagu taageersanaa Generaal Xaftar. dowladahaas ayaa iyagu waxay rabeen inay ciidamadooda badda inay keenaan xeebaha Liibiya si ay u taageeraan Generaal Xaftarka gobolkiisu sii dhacayo, maadaama dowladihii Carbeed ee taageerayay Xaftar ay iyagu u babacdhigi waayeen Turkiga. laakiin Turkiga ayaa kaga hormaray xeebaha Liibiya dowladahaas.